بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. dhammaan akhyaarta sharafta leh waan salaamayaa. Halkan waa youtube-kayga khaaska ah mataqaanaa youtube-ka Guraajo Xasan. Kusoo dhawaada. Maanta waxaan rabnaa inaan isla qaadaa dhigno mowduuc aad muhiim u ah dadka Soomaaliyeed muhiim u ah. Waxaan rabnaa inaan maanta isla qaadaa dhigno oon laba su'aalood ku saabsan dhowr su'aalood ku saabsan aan uga jawaabno waxaa loo yaqaano lottery ama barnaamijka bakhtiyaar nasiibka ee Mareykanka. Waxaa weeye horta marka hore waxaan ka jawaabeynaa waxa la yidhahdo waa maxay lottery. Marka horeysa waa maxay lottery. Su-aasha la yidhahdo lottery muxuu yahay? Lottery waa application ay dowladda Mareykanka ugu tala gashay dadyowga dunida si ay ay u soo galaan dalkaas Mareykanka. Waa barnaamij ku baxa hab bakhtiyaar nasiib ah. Dowladda Mareykanku sanad walba waxay u furtaa albaabada 55,000 oo qof oo barnaamijkan ku soo gala dalkeeda si ay usii xoojiso kala duwanaanshaha dadkaas. Lottery waxaa la aasaasay sanadkii 1995 waqtiyadii hore la furay jiray wuu ka duwanaa habkan hadda loo xareysto. Waqtiyadaas waxaa la sheegaa inuu ahaa barnaamij ku bilowday waxaan loo yaqaano in qofku uu safaaradda Mareykanka ee waddanka uu joogo toos u tegi jiray, warqado u gudbisan jiray, kadibna email loo soo diri jiray. Xogaa way kasoo yar haddana way roonaatay. Kadib waxay timid waagii dambana in boosto lagu dirsan jiray way horumartay. Ugu dambeyn waxay maraysaa hadda in loo furay website weyn oo gooni ah oo laga xareysto oo qof kasta isagoo gurigiisa joogo kasoo xareysanayo. Taas ayaa waxay keentay in sanad kasta dad kor u dhaafay 20 milyan ay soo xareeyaan. Tiradii ay badato dadka xareeya. Marka waxaan rajeynayaa inaan dhammaanteen ka wada faa'iideystaan oo qofka nasiibkiisa helo. Halkan waxaan uga gudbaynaa su'aasha maxay tahay lottery. Marka barnaamijkan waxaan rabnaa haddana inaan isla meel dhigno xagee laga xareeyaa, sanadkii imisa sano, intee lig buu soconayaa. Meesha laga xareeyo waan idiin sheegaya xogaa waan idinla wadaagi doonaa linkiga saxda ah. Waxaan rabaa oo kale inaan idiin sheego barnaamijkan marka hadda aad xareyso wuxuu furmay bishan October 5 uu furmay. Wuxuu ku eg yahay dhammaan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo bisha dambe 8-deeda. Marka waxaan rabnaa inaan isla qaadaa dhigno haddan meesha laga xareeyo iyo qaabka loo xareeyo intaba inaan isla aragno. Insha Allah dhegeysi wacan. Qof kastana waxaan ka codsanayaa inuu si degan u dhegeysto. Haddii uu fahmi waayo inuu kusoo ceshado si faahfaahsan. Haddii kale oo aad fahmi weydana waxaad igu soo gudbin kartaa fariimaha oo comment igu soo dhib wixii su'aal ah kadibna aan kasoo jawaabi doono. Insha Allah video kale aan kasoo samayn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Haddana waxaan gelaynaa website-ka si aan u xareyno DV Lottery. Si aad website-ka rasmiga u hesho waxaad marka hore qoraysaa halkaas waxaad ku qoraysaa Google-ka DV Lottery. Kadib markuu soo baxo waad kusii dhufanaysaa. Waxaa jira aan rabaa in idinka digo waxaa jira akoonno been abuur ah oo dadka qaarkood ay ku sirmaan. Marka waxaan rabaa inaan maanta kan saxda ah idinla wadaago website-ka saxda ah waa ka aad ujeedaan ay ku qoran tahay dvprogram.state.gov. Ciwaanka rasmiga ah ee laga xareysto lottery waa kaas. Waxyaabo kale waxaa jira been abuur ah. Haddaan hoos sii socono waxaan arkaynaa kuwa been waxba ka jirin oo kan oo kale fiiri hadda waxba kama jiraan waa been intooda badan kan oo kale. Marka haddii ciwaanka been abuurka kan oo kale ka mid ah kan oo kale ka mid ah wax .com u dameyso dhan haddaad aragto waa been. Kan oo kale www.frogmin.com baa ka mid ah. Waxyaabahaas oo dhan waa been abuur. Kan oo kale kan isaga waa sax midka sawirka lagu xaqiijiyo laakiin meesha laga xareeyo maaha. Qaybaha oo xaqiiqada ee runta kana ka mid ah oo caadiga travel.state.gov waa been.
kan saxda ah ee maaragtay laga xareeyo dowladda Mareykanku ay u sameysay ee xaqiiqda la hubo waa kan .state.gov. Waxaan ku dhufanaa kaas. Markaad gudaha usoo gasho noo raadinaya. Markaad gudaha usoo gasho waxaad kusii dhufanaysaa meeshan wuxuu ku weydiinayaa welcome to diversity fees lottery program kusoo qori. Halkan waa DVT instructions waxyaabaha lagaa rabo waajibaadka. Marka waxaan rabnaa inaan xuso in ilownay sanadkan qodobkii ugu muhiimsan ama shuruudii ugu adkeeda laga yaabo dadka qaar inay ku adkaan lahayd waa laga reebay oo ahayd baasaboorka. Marka sanadka baasaboorka ma jiro. Halkan waa photo examples qaabka sawirka aad u habeyn lahayd. Marka hadda meeshan waa meesha laga xareeyo begin inteeda ku dhufanaysaa meesha cagaarka si aad u gasho waxaad ku qoraysaa meeshan waxyaabaha xarfahan aad ku qoraysaa gudaha u sii gasho HY M6 8 marka toos waxaad u galaysaa hadda xareyntii macnaha si aan u xareyno hadda anigu waxa weeyaan kaygii hore aan xareeyay qof kale oo hadda cusub aan u xareeyana ma jiro. Marka meeshan example kan baan idin soo qaadanayaa meeshan waxaad ku qoraysaa u horeysa last family name magaca awowga tusaale waxaa lagu dhahaa Cumar Axmed Cali halkaas waxaad ku qoraysaa Cali. First name magacaad ku qoraysaa halkan waa magaca middle name waa aabaha magaciisa. Meeshan waa gender male ama female midkaad aad ku qori. meeshan waa taariikhdaada bisha aad dhalatay iyo sanadka aad dhalatay ku qoraysaa. Wadanka aad ku dhalatay Soomaaliya iskaga qori. Meeshan wadanka city where were you born meeshan waa magaalada aad ku dhalatay halkan wadanka aad ku dhalatay ku qoraysaa. Dabcan waad soo xuleysaa anigu laakiin dee hadda waan ku tusi karaa maxaa ahayd waa tusaale aan kuu sheegi inkastoo fiicnaan lahayd in maaragtay si itusoo taabsiya inaan ugu qoro oo idinku anoo qorayo aad aragtaan. Halkan meeshan waa meesha ugu muhiimsan country of eligibility meeshan waxaa weeyaan taqaanay meeshan waxaa jira dalal ama wadamo laga mamnuucay inay lottery soo xareystaan maxaa yeelay waxay gaadheen tiradii loogu talagalay. Yacni wadamadaas mid ka mid ah haddaad joogto calaamadan waxaad ku dhufanaysaa no baad ku dhufanaysaa kadibna waxaad xulanaysaa meesha ka raadsanaysaa wadan aad sheegato oo kale. Marka maadaama wadankaaga laga reebay haddii laakiin wadankaaga loo ogolayo lottery inuu soo xareysto yes aad u daynaysaa waayo Soomaaliya hadda waa loo ogolyahay waa u daynaysaa saasaad ku dhaafaysaa. Halkan waxaad ka soo xulanaysaa sawirka si aad u soo gelisaa halkan aad ku dhufanaysaa. Halkan markaad ku dhufato waa faylkaad gelaysaa waa soo kugu jira taleefankaaga ama emailka kugu jira. Meeshan waxa weeyaan waad ku qori kartaa waxa weeye waa in care of meeshan waa optional waa iskaga tagi kartaa line 1 address line 1 waad ku qori meeshan meesha xaafadda joogtaad ku qori tusaale waxaad ku qori kartaa hodan waxyaabahaas ku qorqori iyo maaragtay tira waxyaaba noocaas. Line 2 iyadana waa optional waa iskaga tagi kartaa meesha waxaad ku qoraysaa magaalada ay ka tirsan tahay xaafaddaas district halkan waxaad ku qoraysaa district county province state. Halkan waxaad ku qori degmada county province state iyo degmadaad joogto degmada gobolka iyo wadankaad ku qoraysaa. Postal code ama zip code meeshan Soomaaliya ma laha tick baad saaraysaa halkaas ma jirto waa been waxaas soo sheegto oo dhan wadankay ku yaalaan way meeshan wadankaad ka soo xulaysaa Soomaaliya soo xuli saasaad ku gelinaysaa marka meeshan iyadana waa telephone numberka waa optional waa iskaga tagi kartaa qorta waajib kuguma aha. Halkan waxaa weeye waa emailka waa midka ugu muhiimsan meeshan fiiri hoose waxaa lagugu soo qoray meeshaas fiiri note this email address will be used to provide you with additional information if you are selected. Meeshan emailkan waxaa lagugu soo diri doonaa baa lagu yiri fariimaha haddii aad noqoto select ama aad guulaysato. Marka emailka ka taxadar emailka qaybta koobaad A iyo B baa lagu kala sameeyay si loo xaqiijiyo inaad caadita adiga leedahay. Marka qaybtan waxa weeyaan what's the highest level of education you have achieved as today waxbarashadaada heerka ugu sarreeya gaarsiinta lagu yiri. Waxaad qoran kartaa primary school only high school no degree high school yani dugsi sare aad dhigataa ama form 4 baad sanadkii u dambeeyay ku jirtaa
weli shahaadadii maadan qaadanin high school degree meeshan waad dhamaystay shahaadadii waa haysataa waxaa ku dhamaystiray vocational school meesha iskuullada farsamada lagu barto some university course jaamacaddii baad dhigatay weli maadan dhamayn university degree jaamacaddii baad ka qalin jebisay waa haysataa some graduate level courses waxaad haysataa waxoogaa koorsooyin masters degree marka meeshaas aduu waxbarashada heerkay gaarsan tahay yaad ku qori halkan what's your material what's your current material status ma guursatay ma doob baa tahay ma garoob baa tahay hadaad gabar tahay waxyaaba noocaasa unmarried hadaad ku qorto waa okay yani haddaad unmarried tahay ma guursanin halkaasaad unmarried baad ku qori hadday caruur leedahay halkan ku qori marka waa fara badan yihiin midka rabtaad ku qori kartaa legally spirit baad ku qori kartaa meeshan waad taaban kartaa tan u dambeysa windowed baad ku qori windowed waa for a divorced way fara badan yihiin jooskaaga laakiin waxaan kugula talinayaa haddaad qof caadi ah dhalinyaro ah tahay inaad kaa iska qorato waayo dee haddii aad midaan kaa ahayn taabato waxaa lagu weydiinayaa caruurta magacyadoodii iyo sawirkoodii waxaan in soo gelisaa lagaa rabaa number of children halkan caruurta lagaa rabaa halkan marka continue baad leedahay halkaan kusii dhufanaysaa kadib page kale ku gudbin pagekaas waa xaqiijin bas waxa weeye kadibna submit baad leedahay tii u dambeysay saasaad ku xareysay loo tirina saasaad ku xareysatay marka asxaabta aad baan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan idin rajeynayaa inaan wada guuleysataan hadduu ilaa yiraahdo insha allah youtube-ka haddaa markii horeysa soo booqata ay tahayna insha allah subscribe isku day inaad saarto insha allah wixii su-aala kasoo noqdo waan ka jawaabi doonaa hadduu ilaa yiraahdo haddii qof maaragtay u baahan in loo xareeyo uu jiro waa commentiga waad kusoo qori kartaa marka insha allah waqti wacan baan idin rajeynaya nasiib wacan dhammaanteen allah idin barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu